magaaladani boosaaso waa magaalada rugta ganacsiga Puntland waxaana ku nool bulsho aad iyo aad u fara badan waxaana saameyn ballaaran ku yeelashay ganacsiga suuqaasi magaalada boosaaso ee rugta ganacsiga dowladda Puntland Soomaaliya xanuunka coronavirus oo aafayay dunida dacaladeeda haddaba bulshada ku nool magaaladana boosaaso oo aan wax ka weydiiyay sida uu saameeyay ganacsatada yararka ee ku nool magaaladani boosaaso xanuunka coronavirus markaasi macaamiishii ka adeegan jirtay ayaa waxa ay sheegeen inay haatan suuqa hoos u dhacay balse maciishadii kala duwaneed ay cirka isku sharratay xanuunka coronavirus awgiis waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya booso oo magaalo weyn ahayd oo socodkeedu aad dadkeedu u badnaa ayaa bandow laga dhigay habeenkii 15 bari ah laakiin maalintii adigu hoogaa dadku way isku socdaan laakiin boosaasadii la aqoon jiray oo dadka badnaa dadkii ma jiraan dadkii qofkiisa wax ku leeyahay aniga ma taqaan suuqa ka baqaaya qudaartii saas uma soconayo socodkeedu waa yar yahay wax iibkii adigu sidii hore ma aha waa yar yahay laakiin annaga khaas ahaan dadka gada dharka ragga saameyntu nagu yeeshay xanuunkan run ahaantii waxyaabo badan baa jira dadka isu socodkiisa waa yar yihiin bulshada xoogaa suspect baa ku jira oo qof walba shaki baa iskaga jira hase yeeshee dadku waa iska dad aaminsan Allah subxaanahu wa ta'ala marka saameyntu badan aan ugu yeeshay waxa kamid ah xoogaa inuu si socodka yaraaday macnaheedu dadka bulshadii noo imanaysa xoogaa waa yartahay marka war marka isu socodka ganacsiga isagu seeyay marka maalintii halkii aad markii hore aad dad badan helaysheen shafra badan maanta ma heli kartaa bulshada faraha bulshadu horta waa noo timaadaa oo weli wax dhib weyn oo jira oo bulshada ay ku maqan tahay ma jirto xoogaa shaki yar oo dadku ay yaryar yihiin oo dadku socodkooda iska yaryar maahe dhibaatada ugu weyn hadda waxay tahay dhinaca alaabta oo alaabtii noo imaan jirta oo kale oo mar walba ama asbuucii ama labadii asbuucba alaab cusub baan keeni jirnay hadda alaabta nooma timaado bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaah waa iska leh marka labaad Somali News waxaan idinka mahadcelinaynaa jaaniska wanaagsan aad nasiiseen haddii aan soo dhaco su'aashaada ahayd maxaa saameyn oo idinku yeeshay cudurka coronavirus runtii saan ogsoonahay coronavirus marka hore waa cudur ilaahay keenay hase ahaatee saameyn weyn oo la taaban karo oo mid dhaqaale iyo mid bulshaba ah buu maxaan ku yiraahdaa coronavirus lagu yeeshay hadday ahaato maxaan ku yiraahdaa xagga ganacsiga dabcan saameyn fara badan buu nagu yeeshay hadday ahaan lahayd maxaan ku yiraahdaa bulshadii wax naga iibsan lahayd annaga oo maxaan ku yiraahdaa yaraatay oo nin walba maxaan ku yiraahdaa u fekeray hadii dadku isku mid ma shacabka ina waa ka digtoonaatay ina kama digtoonaan hadii qalabkiisu ugu kala galay waxaan ku jiraa suuq bulsho ismarayso Itoobiyaan baa maraya soo galooti baa soo galay sidaa darteed aan galoofyada iyo u xirtay iyo qalabka ma yimaadaan iyagoo taxadaraya kuwa iibsanaya kuwa iibinayana ma yimaadaan iyagoo taxadaraya waayo wali waxaan u aragnaa inuu yahay xanuunku mid dhalanteed ah laakiin waxaan tala ahaan ka faa'iideysan lahaa oo bulshada la wadaagi lahaa jeclahayna baaqaygan in badan oo Soomaaliya inuu maanta gaaro inta Ilaahay wax ku waafajiyeen uu ku fahmaan suuqa dadka aan ka maarmin ha yimaadaan iyagoo taxadaraya Ilaahayna soo tala saartay isticmaalayana tilaabooyinkii caafimaadka la faray sida inay gacmahooda golofiska xirtaan sankii xirtaan taxadaraan dadka la tacaamulayaan ay iska ilaaliyaan kan soo doontay adeega oo aan ka maarmin ama hooyada soo doonatayna iyaduna ay timaado iyadoo taxadarayso guriga markay ku laabanaysana ay aaminsan tahay in ay gacanteedu meel walba soo taabatay kadibna intaysa gurigeeda iyo reerkeeda dhexgelin ama aabuhu uusan reerkiisa dhexgelin si taxadar leh in uu mar walba inuu taxadarkii jiro suuqa dadka joogana aysan baahi u wada imaanin dadka joogana aysan duruuf u soo wada bixinin taas ay macnaha dawladda ay yaani ku mucaaradayaan ay leeyihiin ma haysano dawlad na kaafisa anigu waxaan leeyahay qof walba adigu waxa dawlad ka noqotaa gurigaaga naftaada iyo inta adiga aan mas'uul ka tahay taa haday dhacdo dawladdu wax bay qaban kartaa laakiin qof walba haduu ciladii dawladda saaro isagiina uu ma aragto wuxuu raba sameeyo waxaan u maleyn naftaada adigu un bay mas'uul adaa ka ah marka kadib dawladdu ku caawin kartaa magaalada rugta ganacsiga ee dowladda Puntland ee magaalada boosaaso bulshada ku nool aan maanta mikrofoonka la dhaxqaanay ayaan waxaan wax ka weydiinay sida ay markaasi saameynta ballaaran ugu yeeshay xanuunka coronavirus ee ka jira dunida daafaheeda
وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور تلفزيون كعالمي Soomaali News TV degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari